nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo saxaabadiisii dhex fadhiya ayaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sanqadh bay maqleen saxaabadu albaab la furay sida uu jiiq u yidhaahdoo kaley maqleen markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sanqadha miyaa maqlaysaan markaasay yidhaahdeen haa wuxuu yidhi albaabbaa la furay samada ku yaalla maanta ka horow lama furin malag baa ka soo degaya maanta ka horow adduunyada muu imanin laba hadiyadood oo qaaliya buu inoo wadaa malaggaasi waa labada aayadood ee ugu dambeeya suuratulbaqara iyo suuratulfaatixa labadaasuu siday malaggaas abidkiina muu imanin adduunyada maalintaa ka horow markaana way soo degtay kolkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saxaabadiisa uu dareensiiyey meeqaanka iyo martabada ay ilaahay agtiisa ka joogto suuraddani wuxuuna asxaabta ku yidhi asxaabtaydaay suuraddan towraadna laguma sheegin injiilna laguma sheegin kitaabka qur-aanka ana kuwa ugu qiimaha badan bay ka mid tahay xadiid saxiix bukhaari ku yaalla baa nebigu wuxuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya oo la odhan jiray abu saciid almucalla wuxuu ku yidhi waxaan ku bari doonaa suurad hiya acdam min suwarin fi lqur'aan suurad baan ku barayaa ugu culus oo ugu weyn qur'aanka kariimka ah masaajidkay galeen markuu baxayey ayuu isagoon u sheegin buu saxaabigii gacanta qabtay wuxuu yidhi nebi allow adigii iigu ballan qaaday intaynaan masaajidka ka bixin suurad aad iyo aad u sha'ni weyn inaad i bari doonto waa runta wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu almathaani waalqur'aan alcadiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa weeyaan waa suurad qur'aanka kariimka ah ugu sha'niga weyn leh waana sabca almathaani ka ilaahay qur'aankiisa uu ku yidhi sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim toddobada soo noqnoqda iyo qur'aanka cadiimka ah buu ilaahay ku sheegay inay suuratulfaatixa tahay marka waa suurad soo noqnoqotay oo soo degitaankana way u soo noqnoqotay salaadda dhexdeedana way soo noqnoqotaayoo maalin kasta ruux kastaoo muslimoo xilasaamood ay waajib ku tahay salaaddu 17 jeer ayay waajib ku tahay suuratalfaatixa inuu aqriyo lifadliha salaad haddaad tukato aanad faatixada aqrin wax salaadihii kuuma jirto marka wuxuu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam suurata alfaatixa sha'nigeeda wax la koobi kara inaanay ahayn culimmada islaamkuna waxay tiriyaan asmaa'da suurata alfaatixa waxaanay gaadhsiiyaan ilaa 12 magac sida imaam suyuuti uu kutubihiisa ku sheegayo waxaa ka mida suurata alfaatixa waxaa ka mida suurata shaafiya waxaa ka mida suurata alkaafiya waxaa ka mida ummulkitaab iyo asmaa' kaloo badan oo ilaa 12 ayay ka gaadhsiiyaan culimmada islaamku asmaa'da suuraddani ay leedahay